xuskan maanta ka qabsoomay xarunta shirkadda biyaha Shaaba ee magaalada Boorama waxa uu qayb ka yahay xuska maalinta biyaha adduunka oo halka dhiga sanadkan 2020 looga dhigay biyaha iyo isbedelka cimilada adduunka sidaas waxa sheegay isku duwaha wasaaradda biyaha ee gobolka Awdal Maxamed Cumar Dhimbiil Awliyo sanadkan halka dhiga la qaatay waxa weeye biyaha iyo cimilada waxaad ka warqabtaan in cimilada adduunka wax iska bedelayaan kulaylkii adduunku in wax iska bedelayo oo adduunyadu ay sii kululaanayso waxaad ogtihiin in taasi ay keenayso in roobabkii yaraadaan oo biyihii hoos ay u dhacaan oo ay saameyn weyn inagu hayso cimilada adduunka ay isbedelaysaa waxaana waajib inagu ah inaan la soconno cimilada isbedelaysa oo wax laga qabto hadday noqoto dhirayn hadday noqoto biyahan run-ofka yaacaya in wax laga qabto waa maareeyaha cusub ee shirkadda biyaha Shaaba Cabdiraxmaan Cabdisalaan Sheekh Cali Jawhar waxa uu sheegay inuu si aad ah uga qayb qaadan doonaan ka hortagga caabuqa coronavirus oo ayna bulshada gaarsiinayaan biyo ku filan kudu marka ka dhawaajiyay fariinta ugu weyn ee sanadkan la gudbinaya waxay tahay in laga hadlo biyaha iyo isbedelka cimilada waxa inta inoo soo raacay waxay ku soo beegantay waqti aan munaasabad la dhigi karin oo ah xanuun aad u baahsan oo maarata ee ka jira dhulkeena ka jira adduunkana ka jira aynaga inama soo gaarno waliyeed adduunka ka jira ilaahay naga haya inta uu hayana ka badbaadiyo annagu waxaan diyaar lanahay inaanu qaybtayada qaadano oo ah inaan dadkii biyaha ay cabaan oo ku filan oo fiican intay taalka uu yahay aanu siino wad ogtiino awal maalin walba biyaha waa la heli jiray laakiin markii kuleelkii nagu bilaabmay waxay noqotay in inaan maalinba dhinac siino haddii labada ceel naga soo gaari waayo saddex shay idinku noqon Maxamed Nuur Faahiye oo ah gudoomiyaha guddida shirkadda biyaha Shaaba ayaa wuxuu tilmaamay in shirkadda biyaha Shaaba ay door muhiim ah kaga jirto bixinta adeegga biyaha iyo qiimeyn lagu sameeyay ay ku guuleysteen waxa weeyaan baahida biyaha iyo Boorama alxamdulillah meelaha ugu biyo fiican baynu ku jiraa horta adeegii waa halka la sheegay oo 170 dawladood baa la yiri oo goobood baa la yiri oo adduunyada kuwa ugu fiican baad ka mid tihiin waa wax Ilaahay lagu xamdiyo waa mahadnaq weeyaan kibirna nama gelinayso isfaanfaanna iskuna bogi mayno waanu Ilaahu baanu mahadnaqay idinkana waxaan idinka codsanaynaa taa inaydin maartay noo aqoonsataan dhinaca biyaha nadaafadii waa sax halla maydhaa la yidhi laakiin taa macnaheegu maaha halla baytimaaliya maaha biyaheennii aan tashiilanno nadaafadeenniina aan hagaajisanno labadaa aan isku darro Sheekh Maxamed Saciid Saaweer oo ka mid ah culimada magaalada Boorama gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka oo halkaasi ka hadlayna waxay sheegeen dadka nadaafadooda ay liidato waa inay ku dadaalaan nadaafadda gaar ahaan weysada iyo muxuu ahaa shanta saawadinka tukanay waa nadiif leeyne waa in nadaafadda ku dadaalno nadaafaddu waxa weyn qiimo badan bay leedahay in allaha yuhibbu tawaabiin wa yuhibbu almutatahhiriin ilaahay wuxuu jecel yahay dadka had iyo goor isnadiifiyo ay jecel nadaafadda ilaahay baa jecel insha Allah waxaan rajeynayaa in ummaduna qaadan doonto inaguna markaasi waxay ummaddu inagu lahayd markaan gaarsiin doono aan joogno maanta waa waqti ay jiro kulay cudurkan meel walba gaaray COVID-19 la yiraahdo cudurkaas xalkiisa maanta loo hayaa waxa weeye waa ka hortagiisa runtii wuxuu iskugu shubanayaa in biyo nadiif ah la helo waxaan mar labaad u mahadnaqayaa inaanu maanta biyahaas wax warar ka qabin waqtiyada la dagaalamana cudurkaas jira Nimco Cabdilaahi Kooshi oo ka socotay hay'adda UNICEF iyo barisaab ku xigeenka gobolka Awdal iyaguna halkaasi ka hadlay waxay sheegeen in shirkadda biyaha ee Shaaba ay ku guuleysatay inay bulshada gaarsiiso adeeg biyo ku filan wixii ka dhimanna ay isku garab taagi doonaan wadankeena aan joogno waxay moodeen in biyuhu ay aad ugu yar yihiin iyo magaalada laakiin waxaan ku hambaleynayaa magaalada ay Boorama gaar ahaan shirkadda Shaaba intii aan joogno Somaliland waxaan maleynayaa waa magaalada kaliya ee ka jira company biyaha maamula oo si hagar la'aan oo maamula oo dadkiisa gaarsiiya oo ay magaalada dadka joogaan ay si fiican uga hagar baxeen waxaan oran lahaa dhammaan magaalooyinka kale ha ku daydaan iyagoo dawlad ahaan iyo shacab ahaan iyo maamul ahaanba isla eegaya sidii ay biyo fiican u heli lahaayeen inta qasabada furto waxaad helaysaa biyo power leh oo aad u biyo u power loo Soomaaliland oo dhan laga arkay runtii taana waxaan ku hambaleynayaa shirkadda Shaaba waana la shaqeynaynaa ka dawlad ahaan
iyo ka wasaarad ahaan anaku waan gaarsiinaynaa kulay isku diyayna u joogaa wixii idiga dhiman iyo labada ceel baa insha Allah waan ka dadaalaynaa hay'adaha deeq bixiyaasha sidoo kale aad baan ugu hambalyeeynaa inay iskeen garab istaagaan Axmed Diriya Ciltire wararka warbaahinta SBC Boorama